السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مقعي وحرير هذا ياسين عبد الله وحن دقنا مقالة يوتبوري دالك سويدن. maanta barnaamijkayga wuxuu ku saabsan yahay arrimaha siyaasadda dalka Soomaaliya iyo waayadan dambe isbedelada soo taray. Anigu siyaasi Soomaaliyeed ma ahi, laakiin waxaan rabaa inaan aragtidayda siyaasadeed oo ku aadan Soomaaliya inaan wax idinkaga sheego. way habboonaan lahayd, aad baan u jeclaan lahaa, ku farxi lahaa, oo idinkana mahad celinaya haddii aad fikirkan hadda aan duubay meeshan aad la wadaagtaan saaxiibadiin, aad sii qaybisaan, sheer garaysaan, fikirkiina aad ka dhiibataan idinkoonan qof kaleeto dhaawac ama dhibaato maskaxiyan ah iyo mid kaleba aadan u geysanin, waxba kama qabo. waxaan rabaa inaan soo qaato xiriirka Soomaaliya iyo Kenya oo dowladda Soomaaliya ay xalay ama shalay taariikh markay isbedeshay xalay weli maanta bay noqonaysaa xiriirkii u jartay muxuu ahaa dowladda Kenya. maanta aan idin la hadlayo waxa weeye 15 bishii December 2020 waana maalin talaada ah. marka xalay saqday dhexe xilliga saacadu way isbedeshay oo talaado ay noqotay ayay warkooduna soo saareen. marka waxaan rabaa inaan idin wargeliyo oo aan idin xusuusiyo dhibaatooyinka ay Kenya Soomaaliya ku hayso. anigoonan dhinacna ka eegaynin runtii marka aan caadi si daacad ah idinkula hadlo, anigu dowladda nabad macnaha maamulka nabad iyo nolol waagii hore waan taageersanaan jiray, laakiin markii dambe xoogaa mugdi baa iga galay, taageeradii ama kalsoonidii waan kala noqday. laakiin hase ahaatee haddeertaan marxalad kaleeto ayaa timid. marka xaalad markasta oo timaadana waxay u baahan tahay xalkeeda. waxaa ka mid ah waxyaabaha dhibaatooyinka dadka Soomaaliyeed ay ku qabaan. waxaa ka mid ah viisooyinka kale ama dalku galka waxa la dhaho. Soomaalida anigu waxaan la yaabanahay dadka Soomaaliyeed oo taageeraya dowladda Kenya. dowladda Kenya qaarkood waxay ku leeyihiin qaxooti bay noo haysaa, qaar waxay ku leeyihiin ganacsi baan ku haysanaa, qaar yani war haddaad adiga ganacsi ku haysato ma gun baan u noqonaa marka Kenya. waxaad doonaysaa macnaha inaad adiga ganacsiga haysta adigoo diiday dalkaaga hooyo inaad ganacsigaaga iyo xoolahaaga iyo maalkaaga aad geliso oo lagu dhiso oo aad canshuurna ka bixiso, ba waxaad canshuur siisaa oo lagu dhisaa dalka Kenya iyo dadkooda iyo mushaaharadooda iyo waliba ninka madaxweynaha oo maanta dhibaatada Soomaaliya ku haya iyo dadkaas ayaad canshuur ugu deeqdaa in mushahar la siiyo. markaas waxaad leedahay maya aniga hantiba ii taala, dowladda qalad bay samaysay, way ku degdegtay inay saa samayso. ma aha, no ma aha. fikirka qaldan waa fikirka isticmaalka way. waa inaad bedeshaa. waxaa jira wax la yiraahdo arrin la yiraahdo Stockholm syndrome. Stockholm waa wadanka Sweden, aniga aan deganahay caasimadeena weeye. dhacdada dhacday oo syndrome-kaasi tibaa idin sheegaya, intiina taqaano waa taqaanaan, intaanan aqoonin insha Allah si bogsiis ah baan u dulmarayaa. internet-ka ka arki kartaan oo akhrisan kartaan hadday xiiso idin la yeelato. waxay ahayd nin baa bangi dhacay, muxuu ahaa bangigii buu tagay, bangigii buu maaragtay hub la galay, bangigii isagoo dhacaya booliskii baa yimid, banaankay la istaageen dadkii isagii boolis macnaha dadkii shaqaalihii bangiga iyo xataa kuwii lacagta u soo doontayba aakhirkii waxay la jirsadeen oo ay xigsadeen ninkii iyagaba xorriyadda ka qaaday oo meesha ugu soo galay oo intaasoo saacadood waxaan u malaynayaa 6 maalmood inay socotay arrinka oo la is hortaagnaa ilaa uu maaragtay markii dambe laga tabarbato la qabtay. aakhirkii macnaha dadkii xataa shaqaalahiiba isaga la jirsaday. marka idinku ha noqonin dhibaatooyinkii Stockholm syndrome-kii oo kaleeta ha noqonina. waad ogtihiin fiisooyinka dhibaatooyinka ay ka maraan dadka ganacsatada ah oo waliba ganacsatada Soomaaliya jooga. marka adiga haddaad dalkaagii iyo dadkaagii lacagtaadii iyo dhaqaalahaagii maskaxdaadii cilmigaagii aqoontaadii kartidaadii wixii oo dhan aad u diiday dalkaagii, dee annaga dalka joogna ama kuwa dalka u danqanaya ha nagu beer la xawsanin lacag baa meesha ii taalla, war ordoo soo qaado kala soo bax. cajaladahayga haddaad gadaal u raacdo waxaa jirta cajalad aan exactly Kenya kaga hadlaya 2 sano ka hor oo aan leeyahay dadka lacagtiina kala soo baxa, laakiin waad ku faraxsantihiin. waa Stockholm syndrome-kii weeye. talaabada macnaha ku xigta waxaa weeye diyaaradaha wajeer lagu hayo. diyaaradda waxay ka kacaysaa Muqdisho, wajeer baa la istaajinayaa, baaritaan cusub iyo wax balaayo cusub iyo jinni cusub baa la bilaabaya.
macnaha caqligooda waxay kula tahay Wajeer iyo Nairobi inta u dhaxaysay bay intay dadkii hadayba xataa soo dhex mareenba intay ku degtaan bay qarax ka sameynayaan yani waxaysan aaminsaneen dalkaaga iyo dadkaaga iyo systemkaaga dawladnimo ayaysan aaminsaneen macnaha Wajeerna waxa loogu dejinaya waxa way og yihiin dad Soomaali ah baa degan waxay isleeyihiin haday wax dhimanayaan qarxayaan balada iyaga una ku qaraxdo Soomaalida uun ha wada dhimato warkayga ma ku dhacay hadduusan ku dhicin cajalada ku cesho yani waqtiga yani baaritaanka ay kaaga qaadayaan ayaa kaaga daran kuleylka muxuu ahaa dhididka sheerka arxan darrada ixtiraam darrada Soomaalida waad ogtihiin dadkiinaan Nairobi degan waxaa tihiin lacag socoto qofka Soomaaliga waa la iska qabsadaa waa la ogyahay inuu la luush bixinayo lacag buu bixinaya dalkaaga dad joogi leen saas bad noqon lahayd waa may dhimashadu Ilaahay baa keena haddaadan Ilaahay aaminsaneyn dee ordo suuqa gal anigu waxaan aaminsanahay maalinta aan dhimanayo Ilaahay inuu idilayo ima dili karaan al-shabaab ima dili karaan nin kale maalinta taariikhda saacadaydu secondkayga minidkayga marka uu saa u dhaco waan dhimanaya meeshaan doono baan ku dhinto islaamnimada lagu sheegayna waa taas gunnimada ka baxa waxaan la hadlayaa dadka erayooyinkaas ee suuqyada iyo muxuu ahaa meediyada la soo taagan viisooyinkii marka aad airport ka tagtay laga siin jiro lacagta fiigi waxa iska bixin jirtood wadanka aad gali jirtay maxaa la yiri online ka soo baxsada online macnaha ay ku sameeysta idinka viisada xilli hore soo dalbada yani waa inaad qorshe sameeysaa hatta hadii arrin degdeg kugu dhacdo kuma naxariisanayaan ninka qorsheynayo ganacsadaha aad og yahay isbuuca dambe waxaan aadayaa halkaas fiisada uu sii xareysan karaa hawshii uu qabsan karaa laakiin haday qof dhibaato degdeg arrin ku dhacdo ka waran naxariis male arxan darro waay Soomaalidu waxay ku mahmahdaa nabad la tuugo nabad ma aha markay maanta oo dhan qofka ka xoog weyn hadaa tiraado walaal waa ku bariya iska kayda maalin walba meesha soo istaagaa inuu baad ka qaado raba because wuxuu og yahay inuu ka xoog badan yahay soo marka nabadaas tuugmada ku timid nabad ma aha maalintaad wixii bixin weysay madaxa ka jibinaya afraad waxay yihiin siyaasiyiinta la shirayo siyaasiyiinta Soomaaliyeed ee farta loogu wacayo oo la leeyahay maalin walba halkan imaado oo shirarka la galayo iyagu laftooda waxay caqabad ku yihiin talaabada iyo horumarka dimuqraadiyadda iyo isu dhawaashaha dadkayaga iyo dalkayaga isugu imanayo waad ogeed shirkadaha telefoonada siimankoodii anteenooyinkoodii taagnaa waa tii la burburiyo la jijibiyay sabab ay ku jijibiyeen xataa ma aysan sheegin sababtu waan qiyaasi karaa anigu lafteeda siyaasi baan ahay sababtu waan qiyaasi karaa waxay isleeyihiin al-shabaab baa ku soo galayso telefoonada ay wataan waa telefoonada Soomaaliya siinka kan haddaad jibisid telefoonada ka dambayso macnaha ma u soo dhawaan karaan agagaarka iyo xuduudda kadibna waxa weeye yani waxay dadkii deganaa agagaarka muxuu ahaa xuduudka deganaa oo xataa Soomaalida ahaa waxay yani qadku ka tagayaan maxay ku qasbanaanayaan marka inay lacag bixiyaan oo ay Kenyaatiga telefoonkooda isticmaalaan iyagoo waliba xuduudkii Soomaaliya jooga ma garanaysaa lacag baa laga hadlayaa money waa interest way laba nooc way midna waa al-shabaab taas oo Soomaaliya telefoonkeeda wadata midda kale tan waxa weeye areadan oo dhan siimankaada ka shaqeynaya xitaa haday xuduudka ka gudbaan dhanka Soomaaliya tagaan soo Soomaalida dhinacaas marka ay weyso qadka anteenada uu qaban waayo wax mar walba waxa uu qabanaya kan Kenyaatiga soo marka waxay ku qasban yihiin marka laf Kenyaati ah inay iibsadaan si ay danahooda u dhameystaan taasna maxay noqonaysaa dadka inay kala go'aan soo dadka xuduudka degan xiriir lama soo yeelan karaan dadka wadanka degan iyo meesha laga maamulo si tatatayo ku qabsanaya haddaad aqli leedahay fikir oo kaca daa qabiilkan iyo balaayadan aad ku jirtid jooji waxan nimanka siyaasiyiinta ah oo horay ugu soo guul daraystay maanta niman intaad u istaagtid wallahi kana fiican ma dhihi kartid حسن شيخ شلي بين عينين أنا لهين هنتدي بوجتيو أنتو جتيو حافظنا بوجلم بدو اللي هذا بوحكي بسدي سيو معرفة قلب بدو اللي سو نين أساق وربا وجيه ماشى حد وجهل ويدي هذا حد نين كانوا هاي ستاي كاسن عدو هاي سوي ده ما قبيل بامركا قبيل حقوق جينيا وكان كوكويا دي بنص عطور ربط حبة إني نصيبته مثل كلا تو حواي دلالك يا أفضوبك ay ka sameeyaan xuduudaha degmooyinka iyo gobolada xuduudaha ku taadsan ciyaal dhalinyaro ah intay xataa meedkoodii gadaal laga helay mar dambe la helay
ciidamadan AMISOMta aad sheegaysid oo aad leedihiin maya Soomaaliya xuduudka macnaha cilaaqaadka uma jari karno sababtoo ah ciidamadooda nala joogo war anagu de gun ma nihin al-shabaab waa dad Soomaaliyeed weey waa la heshiin karnaa haddaan aqli leenahay ciidamadan meeshan joogana uma baahnin maantadan hadda idin la hadlayo maantadan saacadan idin la hadlayo sekinkan idin la hadlayo ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa waxay joogaan xuduudda dalka iyagoo ilaalinaya waxa galaya iyo waxa soo baxaya waxa la diiday inay wadanka galaan oo sii galaan waxa weeye qaadkii haddaan idin sheegay qaadkii kontrabaan ah oo soo gali jiray waana loo sheegay waxa la yiraahdaa ninka kontrabaan wado alaabtan waa laga qaaday isagana waa la xiray alaabtan waa la gubay gaarigana waa la wareegaya waa inaad ku taageertaa sharciga dalka waa inaad ku taageertaa madaxdaada sharci haduusan jirin mar walba ay wax dhacaan waxa tiraahdaa hebel cadaalad buu rabaa hebel sharciga hala marsiyo hebel sax la yeelo hadeertaana sharcigii baad adiga laftaada baal maraysaa adoo shacab wax la qaadan kara maaha dilalkaas markaan ka tagno waxa weeye duqeynta diyaaradaha miyad ilowdeen helicopteradii duqeyn jiray iyo miyigii duqeyn jiray muxuu ahaa afmadow waxa ku xigay maamul goboleedka Jubbaland oo ay xataa sheegteen siyaasiyiin iyaga kamid ah iyo dad waaweyn oo madax ay sheegteen Jubbaland inay iyagaba leeyihiin ma taas badartaa waxa dawladda Soomaaliya ay ka hadashay waxa weeye madax banaanida Soomaaliya marka hadii lagu dhaho dhul adiga ku tirsan baan aniga leeyahay deemaba madax banaanidba mid kale waxa weeye arrimaha badda anigu waxaan jeclaa understanding kan warqadahan macnaha afgaradkan ay qorteen oo ay saxiixeen in la dhaho waan ka baxnay kaliya in la yiraahdo hatta hadii maxkamaddu maanta ay inoo ogolaato in xuduudkeena sida annaga aan rabnay xataa ay tahay xagasha intaan soo saaraya insha Allah xagasha sida aan rabnay haday noo tahay oo hoos loo soo jeexo oo meeshii anagu aan rabnay xitaa haday tahay waxa jiro hami ay Soomaaliya ay lahayd oo ahaa shanta Soomaaliya inaad heshid soo marka hadii xuduudkaagu United Nationska iyo adduunka ay jangooyaan oo lagu yiraahdo baddaadu waa ilaa intaas berrito ma dhihi kartid dhulka NFD oo iga maqan baan doonayaa ama dadka xataa NFD inaad ku qasatid dawladda Kenya xitaa in cod loo qaado ma sameyn kartid ada afkaaga isku xiray adduunkana ma ka yeelayo يعني شرعي هذا أقول إن هذا كشرعي يصير عن ويقان وإن لقى فيريا هذين شنط الصومالية دون إنه دن ومعها إن محكمة اللافتة أي قان كاسيت إيجارتو because وحنا لقى حرايا فرصة دي أنه دتك NFD جوجا أنه حتى أعاون لهن أما ينجا من نقول لهاي فكر كمالن مال بكل في عين إن شاء الله وان تاجر سنة إلا إمك وان تاجر سنة كمحمي لكن وحبنا لو معاني أنا جنا وكو يعني يونا فكر كلا تكوتان جدال وحدودها اللي سكوها يستخدم بالربان إني حلاليستان بلكي إنجليز كسيء بالربان إني حلاليستان مركا جو كذا يجو عياريان منها وإن الأوجات أذقون الله عيارتا أنت أسمعتها بحياة وواضح سلطان سوماليا سفير كذا مركي سوء عشت كي كلا تأيدرتي دوت فربضن باكتمت ولما بلاد كهر مركي كيني أي سفير كذي سوء عشتي كي سوماليا هانا أي سوء عيرسي واحد هذا كما إنسان إيمانين وما تقولون ويا بناين الله محا سمينا الله محا سمينا الله محي سمين دونان تلعب ذيك وحيكتتن وحاول أمو دابا جست جد دد لوضع هيستو ورولي ما عرقت النين سياسي ورير كينيا oo muqdisho intuu yimaado ama Addis Ababa taga oo halkaas looga soo shiriyay ma aragtay maxaa anaga siyaasiyiintayada geeya meelaha qaashinka ay quranka wardamiir xumidina dad yahow war qabyaalada intay tagtay ba hataa ninka qaldan oo qabiilkaaga ah bad waxaad ku difaacaysaa adoon og inuu qaldan yahay ba waxaad ku difaacaysaa aragtidiisa hadda wadanka isaga iska leh marka wuxuu doonaha ka sameeyo adiguna waxba kama helaysid aniguna waxba kama helayo أنا صومالي بان هاي مقدشان كل شيء كبر باري ضد ما تحكي لين ما مقدش عنا كاله ودن كفر بوينت فاف بالوقيب سده قبيل لقديم جرو قبيل كست وحي لو قندي وحله مقالة مقدش مركب وحي نقطة فقط معناها ميل صهرتين ماشي صهرتين مركب حلبانة دي أما حلبانة لقى سميني سو معها حلبانة 4.5 كلفتي سلوقيب سده
إلا مقالة ولا ولا دقيقة وعاصمة دالك إلا هل قبيل ما يلان كري يعني عقل فيري وان كهلايا waxa loo cararayo qof walba waxa uu cararayo waxa weeye qabiilkaaga ha sadbadsado ha ka sadbadsado qabiilada kaleeto wali systemkii qabiilkun baan ku jirnaa xildhibaanada baarlamaanka fadhiya oo 4 sano hadda la soo dhaafay fadhiyay wax ay qabteen male dhowr bilood bay wixii ka doodeen sharciyo la bedelayo ma garanaysaa wax saasa laakiin qiimaha lacagta ay qaataan meesha ay ku jiraan qarashka ku baxa iyo wax qabadkooda haba yaraatay ismalaha dhamaantood waxa maamulka ayaa iibsaday hadduu saddex lacag ku iibsanina maskaxdu ka iibsaday midda kale to xadgudubka hawada Soomaaliya dhowr mar ayay Kenya ku soo xadgudubtay iyadoo diyuurado iskeed u wada yimid iyo siyaasiyiin kale ta wada oo dawladda haday xirtay wadanka dariskaaga ah hadii uu xuduudkiisa xirto waxaad ku qasban tahay inaad ammaan siiso oo xuduudkiisa u dayso Kenya ma aysan sameeynin sidaas waa yani dambi ma aha ay farmaajo ka galeen sheekada ay ka xumaaneen dambi ay farmaajo ka galeen ma aha waa dambi waa yasitaan ay adiga Soomaaliga ay ku yasayaan meesha waxa laga hadlayaa qaran laga hadlimaayo qabiil laga hadlimaayo qof waxa laga hadlayaa waa qaran haddii qarankaagii uu yiri war anagu hawadeena waa inoo xiran tahay oo wadan kale uu ku soo gudbo te adigu dambi ka galay hays oran farmaajo ka galay farmaajo shal uu yimid barin uu baxaya laga yaabo inaan loo kordhin wax dhaama horta hadba u jeedaba waxa jira oo kaleeto aaw xuduudkii darbiga ka dhiseen miyaad ilowdeen isaguna waxa kaleeto jira isku socodkii oo ay joojiyeen waad xasuusataa xuduudii dhowr mar xireen oo fureen oo mar kasta loo tagi jiray xataa Xasan Sheekh baa u tagi jiray oo dhigi jiray walaalayaal saan naga daaya saan noo yeela saan nakata oo diideen meel walba soo istaagay farmaajahan baa iyo maamulka hadda uu isaga wato ayaa intaasoo mar gurigiisa loogu tagay dhowr mar warsaan naga daa male wal diijay waayahay buu ku leeyahay laakiin hawshiisu wataa miyaadan damiir lahayn marka adigu midda ku xigta waxa weeye hanjabaada qaxootiga watuu yiri xirada dhadhaab iyo waxa waa xiraya Soomaalida oo dhan ha iga tagto ha iga wada baxdo waxaan wax hadda iyo shalay iyo maanta iyo daraad iyo bilowday ma aha yaanan aqliga lagaaga ciyaarin waxa kale oo jira fargelinta haddeertan ay ku hayso doorashada Soomaaliya baayaduna jirta ixtiraam darrada madax banaanida Soomaaliya ayaa kamida Soomaaliya oo dhan guud ahaan inay madax banaan tahay oo xor u tahay arrimaheeda iyo siyaasadeeda gudaha iyo tan dibadda waxa kamida ixtiraam darrada xuduudda Soomaaliya shalayto waxay soo casuntay Muuse Biixi casumaadda ay soo casumayso waxay kamid tahay yani inaysan ixtiraamaynin xuduudaha Soomaaliya madax banaanida Soomaaliya wadajirka Soomaaliya Muuse wuxuu yiri aniga leeyma warbixin u siiyay BBC-da wuxuu yiri anagu nalooma adeegsan karo macnaha Soomaaliya isaga Soomaaliya iyo iyaga waxa ka dhaxeeya iyaga ha isu raacdeen laakiin anaga nalooma adeegsan karo markaas markii ku xigtay wuxuu yiri xamar macnaha magaalada Muqdisho xamar wax xukuma caawa lama yaqaan Raila Odinga wuu fadhiyaa dadkii oo dhan baa fadhiya wixii oo dhan baa fadhiya maanta cid xukunta lama yaqaan يعني شركته هدي كان نقطة عدوغيسا وصاحبكي دباتي كينيسا وقو نينكا كيانكا والله إنو سن عذيقا كجعلين صوماليدنا النعبين لما انتين اسكو مدبو يدين أركا exactly هدان كسو النقضو سامينتا اي قناعسطادا كل هذا دباتوين كان وحا كياني dadka qaxootiga ku nool ama luflufka meelaha u jooga ama raba inay baxaan ama kuwa iskabal qabatimay oo isliyay ka buuxa dadka jooga Soomaalida joogta walaalayaal fariin baan rabaa inaan idin diro fariinta aan idin diraa waxa ay tahay wadankii waad ka tagteen laakiin wadankii in uu sadexgal ku jiro oo la isu baasbaaso waxaan la qaadan karaa ma haddaad dhaqaale haysataan Soomaaliya dhaqaalihiisu soo kordhaya xataa faa'iido ahaan kaaga faa'iido badan marka loo barbar dhigo Kenya
كينيا لعق سيسا كينيا عشور سيسا كينيا بوليس كذا بعد عشور سيسا ميليتري كذا بعد عشور سيسا مشاهر كذا أتكقيب تهينات بحسد كينيا أياد محوها سفير ذو ذا وسير ذو ذا يو مدح ذو ذا يو جدد كذا وحلو نسائي وحوال بقول الله قبتي عافمات بالعق سيسا صومالي وحمى سيسيت ما أنت بنام بحبة كده عاي جدد كي بالجوباي تايرة الجوباي يعني جد أول بريء يلوصو لسي أو ضد كلاته العقل لجسو أوروريي أو عشور ضد كلاته لجسو أوروريي بريئة لوجود لسي بي ما أنت تايرك جوباين كليهن فرماجو وحاسمين ورنول كما فرماجة أسكله ورجد كاسم فرماجة معلم والبمرة ما قرنيسا وعقل حمضة ده يعني خوفك مركي عقل حمضة الجاهل نمضو مركي أي كعبضته ويلفها يديك روح أي كعجشو دي وحكو بتبادين كرمال أنت سيان كوجو جنيا إن شاء الله مقعي وحلي ده ياسين عبد الله